la taliyaha arrimaha dibadda ee gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Marwo Faadumo Qaasim oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlaysay magaalada Hargaysa ayaa waxay ka hadashay Marwo Faadumo Qaasim oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu magacaabay xubin ka tirsan qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya arrimaha haweenka iyo carruurta oo haatan ku sugan magaalada Hargaysa oo dhawaan ka qayb gashay 63 guuradii ka soo wareegtay maalintii dhalinyarada Soomaaliland oo ka dhacay Hotel Ambassador toddobaadkani Marwo Faadumo Qaasim oo si adag uga hadashay ayaa waxa hadaladeedii ka mid ahaa Somaliland joogta Faadumo ama Faadumo Qaasim waxa weeyaan horta runtii arrin aad iyo aad waji gabax fara badan keentay fool xumana Somaliland u noqotay haweeneydaas sida aynu aragno waxa weyn haweeney uu Farmaajo u magacaabay qaramada midoobay oo u qaabilsan qaybta haweenka maadan ay tahay gabadh uu Farmaajo u magacaabay oo qaramada midoobay u magacaabay Somaliland ma aha maamul goboleed iyadoo waxa weeyaan qaran taagan oo goon istaageeda qaadatay 1991 ina gabadh uu Farmaajo u magacaabay oo iskii u magacaabay inaynu dibadna inaku qaabilno oo waliba ay xuskeeni ufo ay ka qayb gasho wax weyn mid aad iyo aad mustaxiil noqotay ufo waxaan astaantii Somaliland iyo xumaantii iyo xasuuqii Somaliland ku dhacay bay maxay u taagan tahay gabadh uu Farmaajo maanta uu soo magacaabayna inay dhex fadhiisato oo ka qudbadayso oo madaxweynaheeni aynu soo dooranay ag fadhiisato waxay noqotay mid aanan idina ay qaadan karin weyn oo maanta baraha website-yada iyo media-haba aad iyo aad ugu maxay lagu falanqeynaya cadeynteeda inuu Farmaajo uu magacaabay waa taas wad ka heleysaan Google-kaad geli kartaan meel walba wad geli kartaan wata halka ay ku caddahay haddaad hoos u daadegtid iyadoo waraaqihii dhiibaysa ama la siinayo baad arki doontaan waxa weeyaan gabadh Soomaaliya UN-ta u fadhida oo kala bay la mid tahay sidaad u arkaysaan waxa weeyaan waa mid aad iyo aad mucjisa annaka nagu noqotay oo la yaabna ah inay dabeetana iska dhex gasho wadankeeni oo kobba maxaa ahayd dhalinyaradeeni iyo haweenkeeni ay la kulanto iyada oo Soomaaliya metel inay Somaliland ay ka noqotay maxay ahaydin goon istaageedii waana mid aana jirin Somaliland may ka noqon Somaliland Farmaajo ma hoos tagto Somaliland waa qaran taagan oo ilaa 91kii taagnayd oo intaasoo doorasho qabatay oo intaas oo madaxweyne ay isu soo mareen oo Maxamed Ibrahim Cigaal iyo Daahir Riyaale iyo Maxamed Silaayo iyo maanta oo Muuse Bixi uu joogo afar madaxweyne bay iska soo maxay dhaxashay marka maanta inay gabadh yar oo uu Farmaajo uu maxay magacaabay inay dhexdeena ay ceebta iyo fadeexada inta la eeg ay maxay inoo soo hoyso wax weeyaan mid aad iyo aad iyo aad xun oo aan maanta aanu ka codsanayno dawladeeni madaxweynaheena inuu talaabo sharciya oo degdega inuu maxay ka qaado sirdoonkeenu waa inay u yeedhaan waa in la weydiiyo sababta ay u timi iyo cidii casuuntay iyo halka iyo waxa ay maanta halkan u taagan tahay Esta kale Marwo Faadumo Qaasim oo hadalka sii wadata ayaa waxa ay sheegtay wasiirkii hore maaliyadda Marwo Samsam Cabdi Aadan inay haatan ku sugan tahay caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho iyadoo sheegtay inay u doonatay dalkaasi lacag laga dhacay Marwo Samsam Cabdi Aadan Marwo Faadumo Qaasim oo mar kale ka hadlaysa ayaa waxa hadaladeedii ka mid ahaa arkaysa waraaqaha iyo meel walba ku qoran Samsam oo ah wasiirkeeni hore ee maaliyadda oo la leeyahay iyaduna xamar bay caga dhigtay oo ka degtay iyaduna daba socoto lacag laga dhacay lacagta laga dhacay daanu ma garanayo waa lacagtii Somaliland laga dhacay baan u maleynaya marka waxa weeyaan tara hadana iyaduna timi duwanu yaabanahay aad iyo aad baan u yaabanahay waxa weeyaan Somaliland bal hadii xukuumadeeni ay wax kale ay maxay hayde ay u bedeleen qarankii Somaliland aanu ma garanayo laakiin waxaan u baahanahay in si degdeg ah la nooga shaafiyo oo aan ogaano exactly halka ay xukuumadda
kulmiye ay ka taagan tahay qarannimada Soomaaliland. Jaamac Xuseen Xamsa Wowo Star TV Hargaysa.